madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa shaqo joojin ku sameeyay wasiir dowlihii wasaaradda dastuurka maamulkaasi xildhibaan Saadiq Mukhtaar Cabdulle kadib qarqad uu soo saaray. Qoraalkan ayaa waxaa lagu sheegay in wasiirka uu si buuxda u jabiyay amarkii madaxweynaha ee ahaa inaan la isugu imaan karin kulamo dadweyne isagoo lagu eedeeyay inuu shalay ka qayb galay munaasabad ka dhacday magaalada Jowhar. amarkan la sheegay inuu jabiyay xildhibaan Saadiq Mukhtaar Cabdulle ayaa la xiriira mid looga hortagayo cudurka coronavirus kadib markii dadka u geeriyooday oo ka mid noqday wasiir dowlihii wasaaradda cadaaladda maamulkaasi marxuum Khaliif Muumin. Hirshabelle ayaa geerida mas'uulkaasi kadib mas'uuliyiinteeda oo ugu horeeyay madaxweyne Maxamed Cabdi Waare waxay isgeliyeen xaalad go'doon ah ama karantiil si loo xakameeyo cudurka faafa ee coronavirus oo ah mid safmar ah. Soomaaliya ayaa ilaa iyo hadda xaqiijisay kiisas gaaraya ilaa iyo 237 qof waxaana tirada ugu badan ay ku sugan yihiin gudaha magaalada Muqdisho. dowladda Turkiga ayaa markii ugu horeysay ka hadashay dadaalada lagu rabay in dib loogu furo wada hadallada muddada badan hakadka ku jira ee Soomaaliya iyo Somaliland. Maxamed Yilmaz safiirka Turkiga ee Soomaaliya ayaa si weyn u soo dhaweeyay kulankii ay dhawaan magaalada Addis Ababa ay ku yeesheen madaxweyne Farmaajo iyo Muuse Bixi kaas oo uu garwadan ka ahaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed isagoona lahaa qorshaha kulankaasi. Safiirka ayaa kulankaasi ku tilmaamay horumar muhiim ah oo laga gaaray wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland. ninkaas midaas oo dhalinaysa isku soo dhawaansho labada dhinac gaar ahaan madaxda. Maxamed Yilmaz ayaa sidoo kale bogaadiyay raaligelintii uu reer Somaliland siiyay madaxweyne Farmaajo taasoo ku aadaneed xasuuqii dowladii kacaanka ahayd ay ka geysatay deegaanada Somaliland. Yilmaz ayaa ka dhawaajiyay in dowladda Turkiga ay Somaliland u aragto mid la safan dowladda federaalka ay dhexdhexaad ka tahay wada hadallada labada dhinac isla markaana ay ka shaqeyn doonto isku soo dhawaanshahooda. safiirka ayaa waxa kale uu soo dhaweeyay cid kasta oo dabada ka riixaysa furitaanka wada hadalladaasi iyo dadaalada dib loogu furayo midaas oo ay ka qayb tahay qorshayaasha ay Abiy Ahmed uu ka leeyahay wada hadalladan. dhawaan waxaa dhacay horumar aad muhiim u ah oo ku saabsan mowduucan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha Somaliland ayaa ku kulmay Itoobiya. raaligelin baa dhacday waxaana ahayd horumar la taaban karo oo aad u wanaagsan gaar ahaan raaligelintii madaxweynaha Soomaaliya iyo waliba aqbalaadiisa arintan waxaana u aragnaa inay tahay natiijo wanaagsan ayuu yiri safiirka Turkiga ee Soomaaliya. waxaana intaasi ku daray kaliya inay u baahan tahay in la isku dubarido oo la dhameystiro waayo wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya waxa uu leeyahay dhinacyo kala duwan sida siyaasadda iyo warbaahinta oo kale. waxa mar walba leenahay dadka hawshan qaban doona hagi doona ee isku dubaridaya waa dhinacyada uu wada hadalka u dhaxeeyo. waxaan rabaa in mar kale ku celiyo in doorkaygu uu yahay dhexdhexaadin sidaa daraadeedna annaga kaliya waxaan joognaa booska dhexdhexaadinta taas annagoo ka duulayna ayaan dhinacyada ka rabnaa inay annagana hagaan. dabcan annaga talooyin iyo soo jeedin baanu ku lahaan karnaa ayuu yiri danjiraha Turkiga u jooga magaalada Muqdisho. dadaalada lagu rabo inay dib u furmaan wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland ayaa muddooyinkii dambe sii kordhayay iyadoo ay soo ifabaxayeen qorshayaal uu Abiy Ahmed dabada ka si ay u furmaan wada hadalladaasi. waxaa haatan soo shaabaxay khilaaf xoogan oo u dhaxeeya maamulada deriska ee Hirshabelle iyo Puntland kaasoo ka dhashay xakameynta cudurka faafa ee coronavirus ee dhawaan ka dilaacay gudaha Soomaaliya. khilaafka ayaa yimid kadib markii madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdilaahi Dani uu faray ganacsatada deegaanada maamulkaasi inaysan raashin u geyn karin deegaanada maamulka Hirshabelle gaar ahaan gobolka Hiiraan. Dani ayaa arintan oo saameyn ku yeelatay reer Hiiraan ku sheegay mid lagu xakameynayo cudurka COVID-19 oo haatan farabaan ku haya Soomaaliya. waxa aan halkan ugu soo jeedinayaa ganacsatada reer Puntland inaga oo eegayna go'aanadii xanibaadda aan soo saarnay in la joojiyo badeecadaha loo iibgeeyo meelaha ka baxsan Puntland si aan qiimo koror u imaan ayuu yiri Siciid Cabdilaahi Dani. dhinaca kalena gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ee Hirshabelle Cali Jayte Cismaan oo ka jawaabay arintan ayaa shaaciyay in wax laga xumaado ay tahay hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Puntland isagoo sheegay in ganacsatada maamulkaasi iyo kuwa gobolada dhexe uu ka dhaxeeyo xiriir ganacsi oo aad u xoogan. sidoo kale gudoomiye Jayte oo warbaahinta ugu waramayay magaalada Beledweyne ayaa raaligelin ka dalbaday madaxweyne Dani wuxuuna wacad ku maray hadii uu bixin waayo inay qaadi doonaan tallaabo degdeg oo arintaasi ay kaga jawaabayaan.
haddii uusan Dani raaligelin iyo kalaabasho ka sameyn hadalkiisa waxaynu qaadi doonaa tallaabo ka daran tan uu qaaday. Puntland waxaa dadka Hiiraan uga yimaada raashin ka soo degada magaalada Boosaaso, balse halkan waxaa laga qaadaa qudaarta, caanaha, xoolaha iyo badeecadaha kale, ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Hiiraan. Ugu dambeyntii waxa hoos ka xariiqay haddii ay sii socoto arrintan inay kor u qaadi doonto kan maamul ahaan lacagaha canshuuraha ee xoolaha iyo qudaarta laga qaado gobolka Hiiraan ee la geeyo deegaanada maamulka goboleedka Puntland. ganacsatada waxaan u ballan qaadaynaa inaan canshuur dhaaf u sameynayno badeecadaha ay ka keensadaan Puntland. taa bedelkeeda waxaan kordhinaynaa canshuuraha xoolaha iyo qudaarta laga qaado gobolka Hiiraan, ayuu mar kale yiri Jayte. labada maamul oo derisa ayaa waxaa ka dhaxeeyay xiriir ganacsi iyo mid bulsho intaba, wuxuuna khilaafkan saameyn doonaa haddii aan laga heshin labada dhinac. markana dalka Koonfur Afrika, allaha u naxariistay waxaa dalka Koonfur Afrika cudurka coronavirus ugu geeriyooday muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Nabadoon Cali Kheyre oo ku magac dheeraa Cali Xaashi oo si aada gudaha dalkaasi looga yaqaanay. muwaadinka Soomaaliyeed ayaa maalmihii la soo dhaafay la xanuunsanaa isagoo la dhigay cisbitaal ku yaala magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika, halkaas uu ku geeriyooday sida ay sheegeen eheladiisa. gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika Khaliif Xuseen oo ka mid ah dadka saaki tagay cisbitaalka ayaa sheegay in muwaadinka Soomaaliyeed ay ka warhayeen intii uu xanuunsanaa. dadka Koonfur Afrika ayaa waxaa ku sugan Soomaali fara badan oo ganacsi ahaan u tagay dalkaasi, waxaana ganacsigooda saameeyay cudurka kadib markii bandow lagu soo rogay magaalooyinka dalkaasi. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa loogu baaqay inaysan hoobiyaal lagu tuuray oo aysan u arkin garoonka diyaaradaha Aadan Cadde oo dhowr jeer lagu tuuray hoobiyaal la sheegay inay ka yimaadeen dhanka Al-Shabaab. dhowr jeer ayay hoobiyaal ku weerareen garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho. qaar ka mid ah hoobiyaashaasi ayaa ku dhacay saldhigga Xalana oo garoonka ku dhegan. weerar kale oo gaadiid la qarxiyay loo adeegsaday waxyeelana geysay ayaa sidoo kale lagu qaaday saldhigga Xalana iyo garoonka diyaaradaha Aadan Cadde. weerarada lagu qaada garoonka diyaaradaha iyo nawaaxigiisa waxay ka saameyn badan yihiin kuwa ay si joogtada Al-Shabaab uga fuliyaan magaalada dhexdeeda, inkastoo khasaaraha muuqda sida dhimashada, dhaawac iyo burburka hantiyeed ay ka sinaan karaan. haddana marka ay garoonka diyaaradaha joogto, weerarada noocan waxa ay bulshada iyo magaalada ku yeelan karaan saameyn taban oo intaasi ka badan. waxa uu adeegsiyaa Soomaalida ku nool magaalada iyo gobolada, waxa uuna il dhaqaale u yahay dowladda. sidoo kale waxaa adeegsada hay'adaha gargaarka sida dalkeena diblomaasiyiinta Soomaaliyeed fadhigoodu uu yahay iyo howlgalka Amisom oo kaalin lixaad leh ku leh dowlad dhisada Soomaaliya. sidoo kale garoonka waxa uu waayahan dambe soo jiidanayay indhaha caalamka iyadoo diyaaradaha caalamiga ee duulimaadka ka bilaabay kordheen. haddaba haddii aan wax laga qaban weerarada Al-Shabaab ay ku qaadaan garoonka iyo nawaaxigeeda, waxay saameyn dhammaan howlaha garoonka ka socda, waxaana istaagi doona duulimaadyada caalamiga marka hore. kuwa gudaha iyo gobolada waa saameyn doontaa. hay-adaha iyo safaaradaha fadhigoodu yahay Xalana ayaa guuri doona, iyadoo la ogyahay waqtiga ay qaadatay in lagu qanciyay inay dalka soo degaan. howlaha qaramada midoobay midowga Afrika oo asaas u ah howlaha dowlad dhisida ee dalka ka socda waa in iyagana ay markaasi isaga tagaan dalka haddii ay sii socdaan weerarada lagu beegsanayo gudaha Xalane. sidaasi daraaddeed dowladda federaalka iyo dadka Soomaaliyeed waxaa la wadaagayaa walaacan aniga oo ku boorinaya dowladda inaysan weerarada garoonka lagu qaado u arkin hoobiye lasoo tuuray ay u dareenta saameynta badan ee dalkeena ku yeelan karo weerarada lagu qaado goobaha muhiimka u ah dalka. dowladda waa inay arrin qaran u aragtaa difaacidda garoonka diyaaradaha iyo xerada ay marti sharafta dalka degan yihiin ee Xalane. ugu dambeyntii Al-Shabaab waa dabeecad lagu yaqaanay inay isku dayaan inay bulshada gaarsiiyaan nabarada midka ugu xanuunka badan. lagama filayo wax aan dil, naqaxin iyo burbur ahayn. yaan laga yeelin inay u suurta gasho arrintaasi ee xoogga iyo dhaqaalaha la haysto hal isugu geeya ka hortagga iyo la dagaalanka kooxdani duulaanka ku ah wax kasta oo diinteena iyo dhaqankeena xarimeen in lagu xadgudbo. qof kasta oo ka warqaba dhibka laga soo maray dib u furitaanka garoonka Aadan Cadde burburkii kadib wuxuu ka walwalayaa in garoonka wax soo gaaraan dhaawici kara sumcadiisa iyo weliba haykalkiisa shaqo. ugu dambeyntiina sirdoonka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inay dabagal ku hayaan xaaladda caafimaad ee hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyo suurtagalnimada inay liidato. hadalkaas ayaa imaanaya xilli wargeyska Daily NK fadhigiisu yahay Kuuriyada Koonfureed uu shaaca ka qaaday in Kim uu qalin galay 12 bishan Abriil sanadka aynu ku jirnay 2020. sida ku xusan warbixinta jaraa'idkan diiradda saaraya dalkaasi, qalinka ayaa loogu sameeyay wadnaha sababo la xiriira cayilkiisa, shaqada oo ku badatay iyo sigaar cabistiisa oo xad dhaaf ah.
saraakiil ka tirsan muqaabaraadka Mareykanka ayaa rumaysan in warka ku saabsan xaaladda caafimaad ee Kim uu xaqiiq u yahay balse ay aad u kooban tahay fursadda laga heli karo tafaasiil dheeri ah. shakiga la gelinayo badqabka Kim ayaa xoogaysay kadib markii uusan ka soo muuqan munaasabado waaweyn oo wadankaasi ka dhacay.